Asalaamu calaykum halkaan ka daawanaysiin waa wanaagga qoyska ala ugu barateen wararka ugu dambeeyay barnaamij xiiso leh. Warar degdeg ah naga soo gaaray dhankaas Hargeysa ayaa sheegaya in saacada ka hor lagu xiray fanaanka caanka ee Qamar Suugaani oo 3 bilood u dambeysay ku sugnaa magaalada Muqdisho. Sida wararku ku helinaya sheegaya in fanaanka loo xiray in uu jeeyo protocol u degnaa Jamhuuriyadda Barakeysan ee Soomaaliland. Protocolkaas ayaa ah in uu show ku qaban karin calanka Soomaaliya, in uu xiran karin calanka mase fanaanad ay ku qoran tahay calanka Soomaaliya. Waa kan wariyahayna nooga soo warama dhankaas Muqdisho Xasan Biiwaay oo warbixin nooga soo diyaariyay. war degdega howlka caanka ee Qamar Suugaani ayuu shalay ku laabtay magaaladaasi Hargeysa ayaa xabsiga loo taxaabay. Qamar ayaa haatan ku xiran saldhigga magaalada Berbera. fanaankan ayaa loo haystaa booqasho u dhawaan uu ku tagay magaaladaasi Muqdisho. fanaanka caan baxay ee reer Somaliland ee galaya booska Maxamed Bike Qamar Suugaani ayaa xabsiga loo taxaabay daqiiqada ka hor iyadoona aan la garanaynin sababta ka dambeyso. laakiin sida Somaliland caadada ku tahay ayaa inta badan xabsiga u taxaabda fanaaniinta iyo dadka soo booqda magaaladaasi Muqdisho ee gaar ahaan kuwooda caanka ah. fanaanka ayaa sababta dhabta ah ee Somaliland ku haysata aan la sheegin, laakiin waxaa soo bixi doona maalmaha soo socda sababta dhabta ah ee loo xiray alfanaan Qamar Suugaani. ma aha markii horeysay fanaan taxamar ka soo heesa ku soo noqda magaaladaasi Hargeysa xabsiga loo taxaabay. horay ayaa waxaa xabsiga loogu taxaabay fanaaniin u badan gabdho, halka labada socotiin kooxdii xidigaha geeska hadda ka hor mar ay tageen xamar iyagana xabsiga loo taxaabay. Nimcaan Hilaac ayaa sidoo kale xabsiga loo taxaabay. BK oo fanka iskaga baxay weli magaalada Muqdisho muusan imaan. Qamar Suugaani lama garanayo sababta ka dambeysa, wala la ogyahay Qamar Suugaani inuusan gelin inta badan arrimaha loo yaqaano arrimaha siyaasadda ee ka dhaxaysa Somaliland iyo Soomaaliya.